قلب وحوها قدومية ولا الدجمة الراسو اسمه ملك الصومالي ده إثيوبيا إسلام كان وحوها وسير كحيان كأولها جود يقولين الدولة الدجان كالصومالي ده هيدا حقوق هذا هي كدر بدل مدح الدولة الدجان إن سيد الدجا يوسي ديان قلب ما دام وقع عذر كالسكرت ديكرت هي ودنا قراع سيدا هاي سوش رجال تخاطيها كالسكرتين وحال رجل لو قلت ما يقلين بس بالتالي على مقالة نيروبي محمود فارح علي وكان ذلك هذا محمود وهو رمي آسي الجيبي هي نقعد صديق مدحوينها في الدجانكة إن حريتي سيدي قلت عليه عبد الرحمن غلط عبد الرحمن محمد علي كاهن وقدوميه ورئي دجمة الراسو وانا نين مددر إلا 1992 markii kilalka la aasaasay iyo ilaa 2014 wixii ka horeysay u dhaxaysay ka soo shaqeeyay degmada gobolka kilalka degmooyin fara badan laga soo shaqeeyay waa nin markiisii hore ku dhashay deegaanka Quraxay degmada Qabridaar wax ku bartay lana jaan qaaday maamulka kilalka markii la sameeyay 1992 2010 ayaa waxa uu aad iyo aad uga hawlgalay sidii beesha Reefiq Cumar ee degta Baali xuquuq oo markaa xuquuq ku lahayn dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda dhexe ee federaalka midna sidii ay u heli lahayd xuquuqdooda asaasiga juhdi badan buu ku bixiyay waxa uu madaxweynaha oo madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar ayay si khaas ah saaxiib u ahaayeen bulshada inta leeg ee degan shan degmo oo Baali ah ayaa wuxuu ku qanciyay in lagu daro maamulka gobolka Soomaalida iyaga oo aan maaragtay nolosha asaasiga ee dawliga aan waxba kaga jirin muddo 12 sano ah wuxuu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee degmada Raaso ee dajiyay waana degmadaasina waa degmadii sanadkii hadda inaga tagay last year bishii December martigelisay 6000 oo erga ah waa bulsho aad u ballaaran wuxuu qabaa ninkaasi cudurro kala duwan sida sonkorta dhiigkarka iyo cholesterolka waxa uu dheer wadnaha ayaa laga opereeshimay 2014 isbitaalka weyn ee Aga Khan ayaa lagu opereeshimay safar caafimaad u yimid markii uu sidaa u noqdayna isagoo Addis Ababa ka baxay ayaa la qabtay waxa lagu xidhay jeelka dhexe waxaan aniga oo ku hadlaya afka Reefiq Cumar ahna Maxamuud Faarax Cali waxaan dawladda deegaanka Soomaalida u sheegayaa maadaama oo la soo afjaray maaragtay burburkii ay ku socotay dawladda Itoobiya prime minister cusubna la doortay madaxweynuhuna uu soo dhaweeyay qaabka loo dhisay nidaamka dawladda iyo waxa dhan in dhammaan maxaabiista isaga oo kala ee dulmanayaasha ee ku xidhan xabsiyada dhexe waxaan ognahay in xabsigii dhexe ee Addis Ababa ku yaalay oo ay mucaaradka dawladda Itoobiya ku xidhnaan jireen dhamaantiin albaabada la isugu dhuftay dawladuna ay baas maraysay ilaa haddana jeelka dhexe ee Jigjiga ku yaala waxa ku jirta kumanaan in ka badan oo maxaabiisa dhammaan degmooyinka gobolka kilalkana waxa ku xidhan dad lagu qiyaasay ilaa 50,000 maxkamadda Jigjiga ayaa hore ugu xukuntay qalab 3 sano oo xabsi ah maxbuuska taasi oo ku ekeed damaadkii sanadkii la soo dhaafay ee 2017 dhawaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar uu cafis u fidiyay boqolaal hore uga tirsanaa ama ku jiray xabsiyada dhexe ee Jigjiga kuwaas oo la sheegay in eedeymo dawladdu ay haysatay hase yeeshee dadka ehelada ayaa codsanaya in ninkaasi maxbuuska ay xanuunsanaya oo xoriyadiisa dib u helo shirka maayirada